mudane cabdirasaaq marka aad fiiriso xaaladda Soomaalida hadda dusha waad ka fiirisaa inagoo sii geli doona siyaasadda kala duwan ee waddanka Mareykanka sideed u aragtaa xaaladda Soomaaliya hadda xaaladda Soomaaliya waxaan u arkaa sida qof kasta oo Soomaaliya xaalkeeda la socda uu u arkayo taasoo ah Soomaaliya inay qoysinka ka furan waxa weeye hadda magaca ka soo koob Soomaaliya ma jirta bise ma jirta Soomaali sideedaba maanta mise ma jirto mideeda kale hadda Soomaaliya hadii laga hadlo waa iska caadi in qof yiraahdo Soomaaliya iska jirta laakiin xaqiiqada dil waxaynu haysanaa inteero kale Soomaaliya oo kale aan isku ra'yi ahayn aan isla meel u soconin xataa magacayaasha kala duwan wata ayaa jira markaas mugdi weyn baan uga arkaa aniga arrinta Soomaaliya mugdi weyn anu waxaan qabaa dadka Soomaalidu way jiraan wada waa ku halkan fadhiya meeshii kasta ee la tago waa lagu tagayaa amba Mareykan gudihiisa ha noqoto dibadiisa ha noqoto wadankii waxa jooga ugu yaraan 8 milyan oo qof baa ku nool Soomaali waxa la yiraahdaa way jirtaa laakiin waa dad isgabay oo isbaabiyay oo is-aasay weey ya haddii nolol dambe ay jirayso markaa dee waxay ku xidhan tahay dadka nool amba kuwa waqtiga nool amba mustaqbalka dambe kuwa noolaan doona inay wax wada qabsadaan oo ummad dhisaan waa hawl taala waa la jiraa laakiin dee waa dad iskabay oo saaqiday baynuna anigu Soomaaliya waxaan u arkaa waan ku raacsanahay walaalahay iga horreeyay siday u sheegeen Soomaaliya maanta marxalad aad u hooseysa oo aad u liidata qof kasta oo Soomaaliya oo hadii la weydiiyo question-kaasna usan saxi karin ka jawaabi karin ayay ku sugan tahay laakiin waxa ugu weyn aad moodo Soomaaliya waxa weeye dhibaatooyin badan oo magacyo gaar kala leh iyo gruubiyo ayaa gabay Soomaalida waxa ugu daran oo hadda ka maqan waxa weeye nationalism ay ka duwan tahay tii hore Soomaalidii hore waxay ku taagnay wax la yiraahdo wadaniyad iyo ummad isku mid ah waxa ugu daran oo hadda Soomaaliya dib u dhigay aanu arkayno waxa weeye horta nationalismkii waa meesha ka tagay markay taasi dhacdayna waxyaabo badan oo magacyo kala tiibale baa jira Soomaaliya oo gabay in ay horumarto ama ay la tartanto ama ay u naxariisato dadkeeda shacabka ah anigu waxaan jeclaan lahaa in aan uga hadlo shacabka Soomaaliyeed oo u baahan maanta u baahan nabad u baahan caafimaad waxbarasho aynan haysanina tagabtana ay tahay ayadoo ay yani dawlad la'aan ay meesha ka jirto hore dagaalkii Soomaalida ee qabaa'ilka iyo kooxaha u dhaxeeyay uu ka baxay dawladda waaweyn oo waddanka Mareykanka kamid yahay baa kamid ah sababta markaas siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahan xilligan xaadirka Soomaalida hore waxay tiraahdaa hal walba halkay isdhigto ayaa lagu qalaa soo hada garmaysa Soomaalidu maanta halka ay taalo iyada horta isdhigtay marka amba cadow hoose ha yeelato oo gudaheega ku nool amba ku dibadda ha yeelatee dee hal bakti oo meel isdhigtay kolba wixii soo gaadha waraabihii soo gaadha uu goosanaya Mareykanka iyo wadamadan waaweyni adduunyada waxay ka leeyihiin dantooduna waxa weeye adduunyada ay dabaqada ugu sarreysa iyagu fadhiyaan in loo ilaaliyo oo wax ka baabiya amba ka murgiya aan la helin dadkii Soomaalida marka waxa lagu xantay oo la yiri dadkan baaba ee dawlad aan lahayn ee wax u taliya aan lahayn ee wax meel mariya aan lahayn ee wadankooda nabadgelyo aan u lahayn de waxa soo gashay dad burcada oo islaamnimo sheeganaya oo rasaas wata oo doonaya adduunyada inay burburiyaan haddii aanu nahay Mareykanka iyo Jarmalka iyo Faransiiska iyo adduunyada galbeedka dagaalka marka ay naga hor imanayaan nimankan argagixisada ee islaamka isku sheegaya meeshay lagu tuhmayaba waa in loogu tagaa ya oo lagu qarxiyaa lagu baabiya dagaal cadaan oo sidaas ayaa wadamadii galbeedka Mareykanka ugu horeeyay ka soo go'day anuuse waxaan aaminsanahay dadka Soomaalidu cadawga gudaha iyo ka dibaddaba labadaba saaqidnimadooda ayaa keentay markaasi baabiintan sheegaysa cadawgaasi Soomaaliya galay dawladda Mareykanka inay sidaasi u dhaqanto oo ay Soomaalida sidaasi ula dhaqanto si kula muuqata dee dawladda Mareykanku sidaan horeba kuuga sheegay iyada ujeedadeedu ma aha dan Soomaaliyeed haddii Mareykanka wax la isku darsanayo oo dan la wadaagayo wax la isku darsanayo waa halkeega taasu dood
iyo in la maqraysto ayay u baahan tahay oo xarfadeedii la yeesho. laakiin maraykanku dan khaasa ayuu leeyahay, dantiisuna waxa weeye adduunyada oo ugu sarreeyo dusha kaga fadhiyo inuu ilaashado wixii doonaya inay wax ka bedelaanna ya inuu xooggiisa iyo quwaddiisa ka horgeeyo. siyaasaddu halkaasay gashay. markaa soomaalidu shabakadaa siday uga baxaysay ya anu ma hayo ima muuqato madaxdeedii iyo kartideedii inay leedahay. dee ilaa aad hoosta iska hagaajisana cadow shisheeye lama tartami karayso. mudane cabdirasaaq, sideed u aragtaa markaasi adigu taasi uu dhigay axmed siyaasadda maraykanka? anigu waxaan qabaa sida axmed sheegay waddan kastaaba dan buu isagu leeyahay. waddanka kanada america sida la og yahay waxaa lagu aqoonsado loo yaqaano inuu yahay quwadda adduunka ugu weyn oo jirta. awalta soviet union baa la tartamahayay, soviet union meesha waa ka baxay. marka horseedka adduunka oo dhan kor ku haysta ay isku arkayaan inay mas-uuliya ka saaran. marka tartankaana waxaa yimid oo diin ku leh oo muxuu ahaa dad islaamka xaggiisa ka yimid oo le islaamku inaanu diintii islaamka ahayd dhaqankeedii ay ahaan jirtay inaan soo celinaan doonaynaa, oo intaasoo qarnibaa muslimka la gumaysanayay. marka inaan soo noqlayno ayaan doonaynaa, aanu ka bilowno dhulka annagu aanu deganaano islaamka loo yaqaano. waxaanuna uga bilowna waxaa weeye dadka cadowga diinta iyada ku ah oo waddanka iyaga degay inaanu ka saaraa. saanu taas u yeelana dagaal baanu meel walbaba ka cadaynayna inta awoodaya. marka sidii cabdi u sheegay maraykanku wuxuu leeyahay oo ma dhaxayso ya ma ogolin. marka soomaaliya arrintaas argagixisada iyagu ay ku magacaabeen anigu ma aqaano haddaan hadiibadiiba ereygaas garan kara iyo haddii kala bilxaqiiqati ma aqaan. laakiin hadda waa un fulay, adduunku wuxuu aqbalay waxaa la wixii dagaal wax ku istayahay argagixiso iyo calaamo United Nations looga saxiixday. marka maraykanku soomaaliya daweyn oo kale uu ka leeyahay ma jiro. xuduuddaarka hadda uu ku marmarsiyoonayana waxaa weeye argagixiso oo rabta terrorism inay samayso oo annaga danaha iyaga xataa ma aha soomaaliya keliya, dhulka kaloo xataa dariska soomaaliya la-aan ku leenahay ka soo horjeeda yaanu la diriraynaa. meeshaanu ku aragnana waanu la gelin. caasha markay noqoto arrintaasi sida u dhigeen professorka iyo waxa weeyaan mudane cabdirasaaq, yaa markaasi qalad kale ayaad oran karaysaa kooxdan argagixisada maraykanka uu ku tilmaamayo iyo maraykankan isaga oo dadkaasi aan maxkamad amba dembi soo saarin baacsanaya? horta marka ugu horeysa waxaan dhihi lahaa maraykanka waxa uu soomaaliya ka sameeyey hadda waxaan tirin karnaa keliya qaladaadkii dhacay, laakiin wax aan dhihi karno dowladda maraykanka soomaaliya ummadda markaanu ka hadlayno waxbay tartoorta ma jiraan. qaladaadka ay dowladda maraykanka ay gashay oo hadda ugu dambeysay in dad soomaaliyeed uu missile ku diro dhuusamareeb ay ku leedaan. waxaan qabaa dad badan baa la qaybsada oo soomaalida dhexdeeda laftigeeda ah. soomaali iyada isdisha. soomaali nin baa waxaa loo dilaa wuxuu haystaa cellphone u dhinta, mid baa dhul laga haystaa, mid baa beer laga haystaa, mid baa dhulkii u naxariisanayn inuu gubahaya, mid baa naag iska meel alaab la fadhida dila. maraykanka kuwaas unbuu la mid yahay baan qabaa. khaladaadka loo geysto ummadda soomaalida maraykanka iyo inta lamidka ahee wadanka hadda joogta ay soomaalinimada sheeganaysa ummadda wax u naxariista ma jirto. ilamana ahaa siyaasadda maraykan uu isaga una cadeeyay mowqifka maraykan uu ka leeyahay Africa, not only Somalia. wuxuu cadeeyay maraykan in danaha ugaarka ah maraykan qolo kastoo isku dayda si argagixisnimo inay uga hortimaado in ay meeshay joogaan ay ugu tagayaan. waxaana ka ogoltaa caashaan ka dhexgala waxa weeye maraykanka wuxuu leeyahay argagixisaa joogta Soomaaliya, niman ma garanaysaa oo tirinaya magacyadoodii waxay u taagan yihiin. dowlad markaasi ka qabata ama cid kale oo wadankii xukunta oo dacwo saari karta, sidaa daraadeed baa keenaysa inuu isagu gacantiisa uu ula tago isagu wax ka qabta miyaan ahayn? waa midda aan annaga soo waday. waxaan ka wadaa waxa weeye marka ay Soomaali hesho waxaa Soomaali keenay inay iyada isu disho dowlad la'aan. in maraykan uu soo duulo uu Soomaaliya gudaheeda gantaalo ku dhuftana dowlad la'aan baa keentay. in xeebta Soomaaliya
dad laga faransiiska uu ka qaatana dowlad la-aan baa keentay laakiin anigu hadda uma arko wax zaa'id oo maraykanka iyo faransiiska nagu sameeyeen gaar u saarahayo ma jirto amxaara weligeedna ma imaateen haddaana shacabka soomaali diyaar ka dhigin environmentkii iyo sida ayaga casumay inay yimaadaan waxaana keenaya waxa weeye dowlad la-aanta ka jirta wadanka soomaaliya dowlad waa ka jirtaa waxa weeye dowladdan hadda jirta waxay ila tahay intii waxay kasoo dambaysay dowladdan iskamay dhalanin 14 meeting oo intaasoo adduunka ka midana ay lacag iyo caqli iyo waqtiba geliyeen bay kasoo baxday constitutionka maanta jirana waxaan isleeyahay waa midka keliya isu keenay ogolaaday dad iska soo horjeeday waanu ognahay warlords baa jiray laakiin part of ayagoo meeshii kulankii Soomaaliya jooga ayaa ka soo baxay bilow baa jiraan leeyahay professor Ahmed ku soo noqdo maraykanka wadankan aan joogno qofku dambi ma laha ilaa lagu xaqiijiyo maraykanku nimankan waxa weeyaan uu islaamiyiinta ku sheego wuxuu ku sheegaa inay dad dilayaan iyagoon maxkamad la saarin iyagoon cidi dambi ku qirin in gacanta maraykanku oo la tago waliba uu qaarkood laayo miyaan xeerarkii iyo dhaqankii maraykanka baxsanayn way tahay kowde anu waxaan qabaa horta doodeenu inay isku xidhnaato laakiin in laba la kala saaro siyaasadda daakhiliga ah ee wadanka gudihiisa ka dhacaysa ee imikana taagan waxay tahay waa su-aal gooniya dowladaha dibadduna waxa ay ka rabaan soomaalida iyo sida ay ula macaamilayaanna waa su-aal gooniya labaduna way isku xidhan yihiin anugu walaashay seenad kuma waafaqsani inuu bilow jiro anu waxaan qabaa dowladda maanta kumeelgaarka ah ee Soomaaliya lagu tirinayo inay tahay dowladda Ethiopia to ay dhalisay oo ay abuurtay oo ay dusha ka saartay dadka Soomaalida oo xitaa ciidamadeeda 20,000 Ethiopia ciidamadu intay soo galeen ay ku khasbayaan dadka Soomaalida inay ogolaadaan dowlad Ethiopia ay ku soo dhistay Kenya soo damaadgar marka anu ma ogoli doodeedu ma ogola inuu bilow jiro meesha soo damaadgar taas waynu u galeynaa dowladda waynu u gelitaas laakiin khasaaraha maraykanku uu Soomaaliya u keenay sida hore baan anigu aanu sheegay sanqashada hore waxa keentay dowladda Ethiopia soo damaadgar Ethiopia ayaa keentay tuhumka ah inay jiraan dad Soomaaliya oo diin islaama sheeganaya oo qoriyasita oo doonaya inay Ethiopia soo galaan oo Ethiopia burburiyaan ay dood hore soo damaadgar